laga bilaabo 6 aroornimo ilaa 5 galabnimo ee bishan Agost ayay Kenyaanku codadkooda dhiibanayaan. Haddaba waa sida loo codeynayo. Qof walba oo codbixiye ah waxa lagu aqoonsan doonaa diiwaanka codbixinta. Waxa laga doonayaa inaad haysato aqoonsigii aad isku diiwaan gelisay sida kaarka aqoonsiga qaran ee ID card ama passport. Kadib sargaalka matalaya guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalkan Kenya IEBC ayaa magacaaga ka eegi doona diiwaanka codbixiyaasha. Wuxuu sargaalkaasi ku siin doonaa 6 warqadood oo ah kuwa codbixinta si aad u doorato madaxweyne, gudoomiye, senator, xildhibaan, wakiilka haweenka iyo wakiilka golaha hoose ee deegaanka ee MCA-ga loo yaqaano. Kadib waxaad u gudbaysaa qaybta ay yaalaan sanduuqyada codbixinta si aad codkaaga u dhiibato. Sanduuq walba wuxuu leeyahay midabka warqadda codbixinta. Warqaddii aad soo calaamadaysay ama aad saartay calaamadda tigta ee aad ku codaysay ayaad ku ridaysaa sanduuqa leh midabka warqaddaasi. Kadib sargaalka IEBC ayaa khad ama midab lagu aqoonsanayo inaad codkaaga dhiibatay ku marin doona mid ka mid ah farahaaga. Kadibna waxaad aadaysaa gurigaaga si aad u sugtid natiijada doorashada. Fiiro gaar ah, qofka codbixiyaha qasab kuma aha inuu u wada codeeyo 6 jago ee kala duwan ee loo codeynayo. Sidoo kale, qofka aan waxba akhrin karin ama qori karin waxa laga doonayaa inuu goobta codbixinta la yimaado qof uu ku kalsoon yahay oo caawiyo. Isla markaana qofkaasi waxa qasab ah inuu wato kaarka aqoonsiga qaran ee ID card-ka.